doorashooyinkaasi waxaan runtii kula dardaarmayaa xisbiyada qaranka siiba xisbiga kulmiye xisbiga wadani inaanay u ekaan ololihii 2017 la galay. munaasabad lagu soo dhaweynayo xogayaha cusub ee xisbiga UCUD ee arrimaha dibadda mudane Ciid Xasan Muuse isla markaana lagu dardargelinayo howlaha xisbiga oo loogu magac daray saaxiibada UCUD ayaa waxa lagu qabtay magaalada London. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin waxgarad aqoon-yahano haween qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada London. dhammaan mas'uuliyiintii madasha ka hadlaya waxay ku dheeraadeen in xogayaha cusub ee xisbiga UCUD ee arrimaha dibadda mudane Ciid Xasan Muuse yahay mas'uul ka soo dhalaali kara xilka loo idmaday. arkamid ah mas'uuliyiintii madasha ka hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan leenahay xogayahana Allah kugu asturo arinta qiimaha badan leh xilka qiimaha badan leh ee lagu magacaabay Ilaahay kugu asturo. waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa saaxiibkay walaalkay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga UCUD. aragtida aynu wada ognahay qoqobka iyo qabyaaladda iyo kala xidhxidhnaanta waxa inaga saari kara maanta Faysal Cali Xuseen. waxa weeyaan Ciid waxa weeyaan wayn wada naqaana waa nin le waxa weeyaan hawlkar iyo karti iyo magac weyn kule waxa weeyaan dalkan UK iyo Soomaaliland oo dhanba. aad iyo aad baan niga mahad celinayna arrintan oo caawa loo soo abaabulay walaalkay Ciid xogayaha arrimaha dibadda ee UCUD. run ahaantii anigu walaalkay Ciid mar waa walaalkay marna waa saaxiibkay muddo badan baana naqaanaa waxaana ku ogahay karti iyo karaamo labadaba waan ku ogahay. waa nin dadaal badan tiim hadduu helana waxaan aaminsanahay inuu ka mudho dhalinayo. Ciid oo loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga waxaan leeyahay xisbigu wuxuu helay asad buu helay. waa nin u qalma boosishanka iyo boosishan ka sii sarreeya u qalmaa. dalku wuxuu doonayaa hogaamiye dadka turaalo u leh oo danahooga ka taliya oo dadka isku soo dhaweeya. Soomaaliland kolayba saad ula socotaan siyaasadeeda guud waxaa ku furan mowjado badan baa ku furan mantiqada marka la eego. u timidayba inaynu walaalkeen Ciid cirka geyno. waxaan leenahay ururka UCUDna waxa idinku soo biiray baan leenahay yani qof aad u qiimo badan. Ciid waxa weeye ninka koobaad iyadoo aan Soomaaliland ahayn community lahayn ka furay iska furay weeye iyadoo aan xafiis furnayn waxaan waraaqaha ku daadin jiray guryaha ayaan ku daadin jiray xafiis wareego ah muddo dheer. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gashaan xafladan aynu ku soo dhaweynayno xogayaha arrimaha dibadda oo dhawaan xilka loo magacaabay Ciid Jaamac Muuse Xasan Muuse iga raalahaada. Ciid waxaan ku soo dhaweynayno Ciidna waxaan leenahay ma sha Allah tabaarak Ilaahay horta xilka kugu asturo. amiya ragay dumar mudana iyo marwooyinba sida quruxda badan leh ee aad igu soo dhaweyseen London siibanaba gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay arrimaha dibadda Ciid Xasan iyo Samson oo Birmingham joogta. waan aad ugu mahadnaqayaa runtii sida igu soo dhaweeyeen ariga Ingiriiska. ma sha Allah tabarakallah waxaan arkayaa xisbigii oo ididiilo aad u qurux badan ay ka muuqato. waad soo sharafteen markaa waan idin ogahay aadna waan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin odayaasha hablaha iyo dhammaantiinba. waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa gudoomiyaha garabka haweenka dalka Sultanka Imaaraadka Carabta oo halkan inala joogta marwo Safiya Suleekha Daawud. soo dhawo waan ku leeyahay walaal adigana. anu maanta xisbiga kuma soo biirin oo waan magacaabanahayba oo mar horaan xisbiga ka mid noqday laakiin ujeedada halkan aynu maanta iskugu nimid waxay ahayd daahfurka movement cusub oo ugu magac daray Friends of UCUD oo ujeedadiisuna tahay inaan ku dardargelino ololaha xisbiga oo xubno cusub ku hantino oo cudud taageere mid dhaqaale iyo mid codba xisbiga la garab istaaga. waana wax uguba maaha xisbiyada adduunka waa la sameeyayo marka doorasho ay timaado especially qof
cusub la rabo in la riixo movementkaasi waa la sameeyaayo matalan dalkan aynu joogna Labourka markii uu Jeremy Corbyn uu ka ahaa leaderka movement la yidhaaho Momentum ayaa runtii aad ugu ololeyn jiray social mediaha iyo dhinac walba oo runtii numberkii waqtigii 2016 doorashadii MPyadii numberkii ku guuleystay yani uu ahaa sabab u ahaa ololaha Momentum ay u sameeyeen Jeremy Corbyn ololaha mid lamida ayaynu rabnaa in France of Ucid u samayso Ucid iyo Faysal iyo masharaxiisa madaxweyne ku xigeenay soo socdo insha Allah marka xoogga ayaynu saari waynu dadaali magaalooyinka kale UK sida Birmingham iyo maxaa la yiraahdaa Bristol Sheffield Cardiff meel walba waynu gaari oo insha Allah dad siniyada oo dhaba u taageersan xisbiga iyo inuu guuleysto sanadkan Faysal ayaynu abuuri doonaa ayaynu sameeyni doonaa talabaad waxa weeyaan doorashooyin baa dalkeena ku soo socda oo sababta aynu halkan iskugu nimidnayba waa sidaan sheegay movementka doorashooyinka inuu taageero xisbiga aynu ku daafurayno doorashooyinkaasi waxaan runtii kula dardaarmayaa xisbiyada qaranka siiba xisbiga kulmiye xisbiga wadani inaanay u ekaan ololihii 2017 la galay ee olole ka duwan la galo oo dadka loo turo xaaladda lagu jiro la qiimeeyo waayo xaalad ka duwan tii 2017 aynu ku jirnay ayaa maanta lagu jiraa marka hadduu ololuhu siiqadii 2017 uu maro consequenceskiisa amba caqiibada amba natiijadu yeelan karno waynu garan karnaa qof maskax leh uu garan karaa marka waxaan aad iyo aad ugula dardaarmayaa labada xisbi ee kulmiye wadani inay olole nadiifa oo ku qotonta amba ujeedadiisu ay tahay in dadka la hanto dadka maxaa lagu hantaa marka siyaasiyiin la yahay waxa lagu hantaa aragti siyaasadeed waxa lagu hantaa program maxay hadayn siyaasadeed manifesto amba political platform annagu wicid hadeenu nahay waxaanu soo bandhigaynaa waxaanu labada xisbi kaga duwannahay ayaanu soo bandhigaynaa oo waxaanu ku loolamaynaa oo kula tartamaynaa labada xisbi fikir siyaasadeed baanu kula tartamaynaa عبد الفتاح علي شروع تلفزيون كعالمي MMTV مقالة لندن usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahab Plus